gabadh baa ku tiri gabadh kale walaalay waxaan arkaa ilmahaagu inuu maalin kaste iskuulkiisa tagayo waxaan arkaa bay tiri inuu mar walba library-gu ku socdo waxaan arkaa bay tiri isagoo mar kasta ku socdo dugsiga walaalay awlaadeydii ciyaalkayga qaar kamida waa la daala dhacaya meel kastoo soo qoro 2 maalmood markuu tago ilmihii wuu ka haraya wax kastoon ku yiraahdo 2 maalmood markuu sameeyo ka haraya si kastoon u waaniyo intuu maqlo ayuu ka haraya adigu sideed yeesha markaas gabadhii ugu jawaabtay ku tiri awlaadu bay ku oranaysaa waxa samee la yiraahdo ma sameeyaane waxay ka arkayaan bay sameeyaan ilmaha adarka si library ku noqonaya waxay tiri yaraantiisii ayaan tusi jiray inaan buugaga akhristo waxay buugagan aad u xiiseynayay ilmihii wixii aad ku aqsamayso uu ku arkaya maanta dhan haddii ilmaha yar dashay uu ku soo koro adigoo markasta gacanta ku haya telefoonku rabayaa bay tiri hadduu ku soo koro adigoo telefoonka maalinta dhan hor fadhiya wax la daawado xiiseynaya hadduu ilmahaasi ku soo koro inay cagtaadu ku badan tahay masaajidka inay cagtaadu ku badan tahay dugsiyada wax ka soo baranayso inay cagtaadu library-ga ku badan tahay meel kasta oo tagayso ilmahani raadkaaga uu daba raacaya waayo gacantaada haysayo waad ka haysanaysaa mar walba wixii buu soo arkaya ilmaha xiisihiisu yaraantu bilaabmay tiri marka haddii aad arkayso ilmahaygo wax akhrisanaya waa waxaan yaraantiisii aan ku soo abaabiyey aan ku soo koriyey su'aashaada halkan akhriska bay tiri ee buugaga la akhrisanayo ilmahayga markaste buug baan ku akhrisanayay bay tiri way yareed wax kale aan ku mashquulay inaan ku ag sameeyo waxyaalahan anigu shakhsiyan doonay inaan sameeyo waqtiyo gaaran yaan lahaa bay tiri balse inta uu ilmaha yar yaag joogo waxyaalo isaga naftiisa wax u taraya ayaan u sameyn jiray badina waxay ahayd waxyaalo aniga nafteeda wax u taraya bay tiri marka meel kastoon tagayo oo wanaagsan ilmaha yar waan ka haysan jiray library-ga waan tagi jiray wax baan ku soo dhigan jiray inta wax dhiganay wax jira library-ga meel ciyaalka oo lagu talagalay inay buug ku akhristaan kuluqyaasha ku sameeyaan inay waxa jira warqad cadaan oo waxyaalo bisad yar ku sawiranto ilmuhu color ku dul sameynayo painting baa jiray waxyaalo badan oo meesha ciyaalka loogu talagalay ayaa jiray halkaas ilmaha ku mashquulay bay jiray oo kuma mashquuleyn telefoonkaygana u dhiibo ama television u daawado televisionku ma xuba bay jiray ilmihii waqti waad u sameyn kartaa oo ciyaalada ku daawado waa luqadii uu ka baranaya inuu ilmuhu nafisana waa loo baahay oo maanta dhan kuma jiray bay jiray inuu wuxuu akhriyo wuxuu baahay inuu nafiso kasaas awgeed parka markaan geeyay bay jiray in parkiga la joogo waa waqtigan ilmahayga la qaadanaya ma aha bay jiray waqtigan telefoon aan dad la sheekeysanayo ayaga waqti la qaadanaya ma waxay tir laba mid uma noqonaysaa way wadnuhu laba meelood uma wada jeedi karayo mar kaliya aqaluguna laba meelood ma wada fiirin karo waxay tiri markaan ilmahayga la joogo ilmahaygan la jooga markaan asxaabtay la sheekeysanayaan asxaabtayna la sheekeysanaya laakiin labada shay iskuma wada karay bay tiri waayo meel bay tahay inuu concentration-ku u bato marka ilmaha su'aalaha walaalaadi weydiisa waxay tiri waa wax aniga oo ilmahan iga arkay marka haddii aad doonayso bay tiri inuu ilmaha kugu daydo ogow awlaadu ma sameeyaan waxa lagu yiraahdo waxay sameeyaan waxay ka arkayaan waalid walba way khusaysaa arintani waxaynu u baahanahay dhamaanteen inaynu ilmaheena aynu ag socono aynu garab socono aynu ag istaagno aynu siino labada dhinacba way hadda dhinaca serious kun mar walba la raaco ilmahani wixii way ka horman kartaa uu nici karaa marka balance loo baahan balance waxa weeyaan in la siin karo waxyaalo uu ilmahaagu maskaxdiisu ay ku kobcayso waa akhriskii waa tacliintii waxa weeyaan waa waxyaalaha naftiisa u wanaagsan aqligiisa ku kobcayo naftiisuna ay wax wanaagsan ugu qaban karo dhinaca kalena waa ilmo yar waxa weeyaan wuxuu baahay fan buu baahay wuxuu baahay inuu iska nafiso kubaddu ciyaarayo dibadda banaanka haduu iskaga ciyaaro hawo helaya uu dhaqdhaqaaqaya sportku waa caafimaad uu ku nafisaya waxa kale oo jira mararka qaarkood inuu gamekiisa iska ciyaaro haduu telefoonkiisa ka ciyaarayo haduu TV-ga ku ciyaaro PlayStation-kiisa yani ilmuhu nafisi karo marka balance loo baahan yahay in meel loo janjeero maaha si gabadhaas sheegayso waana runteed ilmuhu waxaad u tilmaantoon ma sameeynaye wuxuu ka arko sameeynaya in waalid walba uu dadaalo ilmihiisa tuso example-ka fiican haduuna xataa ilmahaagaasi isla maanta waxyaalaha uu sameeyay wanaagsan maalin maalmaha kamida uu xasuusan doonaa oo badi weydin ka arkay dadku markii waa weynaadaan ay aqliyeystaan waxay dhahdaan aabahay baa san sameyn jiray hooyadii baa san sameyn jirtay
waxaan aad imika uu kaa arkayo waa wax maskaxda ku dhex duuban oo mar walba uu magacaaga maqlo uu aragaaga arko ilmahaaga automatically wuu soo xasuusanayaa aabbaha iyo hooyada wanaagsaneed ahayd. gabadhan waa runteed ciyaalku waxa samee la yiraahdo ma sameeyaan waxay ka arkayaan bay sameeyaan dhammaanteed aynu wada dadaalno insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.